shacabka iyo dhalinyarada gobolka Gabiley ayaa si diiran u soo dhaweeyay heshiiskii safgarada ay gaadheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. haddaba shacabka oo aragtidooda ka dhiibanayana waxa hadaladoodii kamid ahaa maana raxiim horta waan salaamayaa Muuse Biixi iyo Soomaaliland waanan itiraafsanahay inay wax noqono laakiin oo Soomaaliya ma doonayno laakiin waxaan ka shakisanahay haddana konta ka sano yaan ka shakisanahay ilaahay baa naga laakiin ducaa nagu waajibtay ilaahay noo sakhirad haday saas u dhacdo horta waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskaasi Itoobiya ay la soo heshiiyeen ee dekadii biyaha miyaynu cabbi lahayn biyaha qaraadh ee ku jira meesha miyaynu cabbi lahayn waa inaan ka faa'iidaysanaa dalka waa inaynu inagu leenahay waa inaan tusnaa adduunweynaha meesha ma ammaanaan u haynaa aad iyo aad baad heeriyadii waan tuurnay xasan sheekh mijaxaabada lagu dhigay waanu ku faraxay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu yahay magacaygu maxamed xasan cashuur kana mid odayaasha reer Gabiley ka mid waxaan soo dhaweynayaa heshiiska ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen ee itiraafkeenu ku lifaaqan yahay 20 kiiloomitir baa sheegaya hadii 100 kiiloomitir xitaa la siinayo tan waaba kire waxaan odhan lahaa yaxaasyadii iyo dugaagii haynu ugu galnay godka ee kontanka sano lagu haynaga duubnaayo cumaha hadii ilaahay naga furfuray alxamdulillah waan soo dhaweynaynaa heshiiska waan soo dhaweynayaa inta ka hor timaadana waa cadow Itoobiya waa tina soo dhaweysay markaad xasuuqdeen eed waxaan ugu samaysteen eed maanta ragayga dhamaysteen eed maanta wadalkayga ka kiciseen eed xoog noo sheegateen eed tilaadeen dawlad baanu nahay wana waa shicib dhamay tilaadeen waa nagi baxsanay waa nagi Itoobiya galay waa tina soo dhaweysay waa tina hagaajisay waa tii meelna fariisisay waa tina noolaysay waa tii biyihii noo dhigtay waa tii baadkii noo dhigtay albaabada waa tii noo furtay waa tii maanta dalbixiyoon naga xaragaysay si fiican oo nolol ugu noolay maanta kuma wacad furno waxay nagu leedahay maanta hadii waxay nagu leedahay maalinka maanta waxay nagu leedahay hadda xusuus weyn bay nagu leedahay abaal bay nagu leedahay ma gudi karna abaalkeega imikii haatanna anagu xor baan waxayaga u nahay hadaanu siinan xor baan u nahay hadaanu maalinka maanta ka karaynan xor baan u nahay waxayaga Soomaaliyeey waa inaad naga go'daan waa inaad naga hadhaan waa inaad nabad gelisaan anagu horaan u marnay ummadda ilaahay baan anagu idinka hoos galay iyo ilaahay idin ma rabno السلام عليكم magacaygu waa maxay Ismaaciil Axmed oo ku nool magaalada Gabiley waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii ay gaadheen dawladda Soomaaliland iyo Itoobiya waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كوباد وحن حنبلي أودرنا مدحونها جمهورية الصومال مدن موسى بيح عبدي الشركة يكون الصومال رئيس الوزراء إثيوبيا وحن لنا حس الشيخ محمود وان دوحي انو كلنا جبوتي arrimiya inuu ka wada hadalnay wax khaas ah ahayn aba saataysta diblomaasiyadeed oo hadashina waanu soo dhaweynaa mudane madaxweyne arrinkaad kaga hadlisay arrin wax jajab la yiraahdo Soomaali la yiraahdo ma jire anaku madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland nooy waa mudane Muuse Biixi Cabdi dalkana isaga noo xil saaran waanu soo dhaweynaynaa waanu hambalyeeynaa boqolkiiba farxad maanu seexanba xalay habeen horeba dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weey dalka qaranka waxa aynu waynu wada ilaashanaa qaranka inaga leh cadawgeennana mid baynu nahay yaan la idin dhex galin waxaan meesha ku jirin oo la inaga sheekayn madaxweynuhu waxyaabo amba siyaasado kale waxba ku jireen la nool waa wax dalkii u dana waa aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا aadan أحمد khayre waxaan ka jawaabayaa su'aal aad weydiiseen oo aragtideeda inaan ka dhiibto heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya galeen aad iyo aad baan u taageersanahay waan ku faraxsanahay anu soo dhaweynaynaa madaxweynaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waanu hambalyeeynaa waxaanu leenahay ilaahay haydan caawiyo waxaan ku sheegaba ma garanayo farxadda aniga iga muuqata waxaan ilaaba ma garanayo waayo waxaan helay waxaan u badan doonay aqoonsi baad u aragtaa arrintan aqoonsi baan u arkaa waana aqoonsi dhaba wey intee suganay waxaynu sugaynay 3 sannadood waxaynu sugaynay inaynu helay baan u aqaanaa waxaynu u oomanay inaynu helay baan u aqaanaa waxaynu doonaynay inaynu helay baan u arkayaa waynu ku guulaysanay midda labaad dadka sida qaladka u sheegayo
dee dhul la bixiyey iyo dhul cid la siin ma jira waa la kireeyey jabuuti oo 2 taaka ah ayaa kireysay intaasoo saldhig innaguna dee hore baynu u karayno DPL waynu ka kareen tanna waa tii uun aad baan u soo dhaweynaa waa Badr Sheekh goobjoog TV gobolka Gabiley